wanaagsan kaaweshanaatay midka cadowga wiiqe halkan kama wadaatay shacabyo wanaagsani kaaweshanaatay midka cadowga wiiqe halkan kama wadaatay wallaan ku dhaastay mid wadaniya baatay wacadkaynu dhiganana kanka weecan baatay soomaali wadarteed walaalaynu nahay waaciidsi mooye manayaa wax loo dhibin soomaali wadarteed walaalaynu nahay waaciidsi mooye manayaa wax loo dhibin cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo ka mid ahaa saraakiishii sarsare ee jabhaddii ololof oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa dalka kenya ayaa maanta waxaa lagu soo dhoweeyey magaalada hargeysa waxaana safarkiisa ku wehelinayay safiirka xogeenka somalilan u jooga safaaradda kenya iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan jabhaddii ololof mas-uuliyiinta soo dhoweyntiisa ka qayb qaatay ayaa waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha dibadda somalilan xildhibaano ka kala tirsan golaha baarlamaanka iyo mudanayaal kale oo ka socday golaha deegaanka hargeysa barasaabka gobolka maroodijeex iyo mas-uuliyiin kale wafdigan ballaadhan ee horkacayay ku-xigeenka ambaasadorka somalilan ee dalka kenya wafdiganoo ka kooban aqoon-yahan cabdikariin oo loo yaqaano qalbi dhagax iyo odayaasha iyo ugaaska iyo wafdida kale la socda waxaan idinku soo dhowaynaynaa salaan kaliya laaba anigoo ku hadlaya dhammaan magaca gobolka maroodijeex waxaan idinku soo dhowaynaynaa dalkiinnii hooyo ku soo dhowaada dalkiinnii oo laydinka jecel yahay somalilan waa dal nabad ah oo laga jecel yahay dhammaan dadka afka soomaaliga ku hadla cidna halkan lagama nibca dadka soomaalida oo dhan waannu jecel lahay somalilan waa dal xor ah oo madax bannaan wakiilada xildhibaano badan baan ku soconnaa halkan waxaa noo sharafa inaynu ku soo dhoweyno cabdikariim xaaji cabdikariim inaynu ku soo dhoweyno oo awal qalbi dhagax la odhan jiray laakiin iminka qalbi dahab baan u bixnay maanta laga bilaabo waa qalbi dahab xukuumad axsaab iyo shacabba waxaan halkan ku soo dhoweynaynaa iyo golayaalba cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax dadku u yaqaanaan xildhibaano canaaniistiisaasaynu qaadanaynaa qalbi dahab mar hadduu jeelkii ka soo baxay ilaahay ka soo furfuray waxaan leenahay ku soo dhowow dalkaagii iyo dadkaagiiba ku soo dhowow waxa weeye geesi soomaaliyeed baa tahay waxa weeye taariikhdaa ku qori doonta hadduu aan laydmo muuse qalbi dhagax oo ah nin soomaaliyeed oo aad garanaysaan oo caan ah wafdiga waxaa hogaaminayay safiir ku-xigeenkeena dalka kenya ambasadarayaal leh waxaannu leenahay cabdikariin qalbi dhagax ku soo dhowow somalilan iyo wafdiga la socda ku soo dhowow somalilan ku soo dhowow dadkaagii iyo ehelkaagii oo kuu diyaara oo ku sugayey oo in badan bacdi kuu taagnaa baan ku leenahay ku soo dhowow runtii waxaannu aad iyo aad uga xunnahay dhibaatadii kugu dhacday ee laguu geystay ee dadka aad ehelka filaysay ee aad soomaalinimada filaysay ay kuu geysteen waxa taasi ay caddaynaysaa inaanay jirin wax la yidhaahdo dowlad soomaaliyeed oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ka dhexaysa inaanay jirin bay taasi caddaynaysaa waxa weeye annagu 60kii ayaannu soomaalinimo iyo kalgacal iyo annagoo wadna aanu tagnay soomaaliya wixii nagaga soo dhacay iyo dhibaatadan aan kala kulannay waad la socoteen maantana taa cabdikariin qalbi dhagax ku dhacday waxay muujinaysaa in xukuumadda ka jirta muqdisho inaanay ahayn xukuumadda soomaaliya ay tahay xukuumadda koonfurta soomaaliya ummadda soomaaliyeed magac ummadda soomaaliyeed marka la yidhaahdo ama qowmiyadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya inay kala duwan yihiin bay taasi ku muujinaysaa sharaf weyn ayay noo tahay ka safaarad ahaan kenya inaannu wafdigan ballaadhan ee uu hogaaminayo cabdikariin xaaji muuse ee xubno ay ka yihiin ugaas cabdirasaaq ugaas iyo axmed xaashi cilmi in ay maanta somalilan ay soo booqdaan sidan ballaadhanna loo soo dhoweeyo sideedaba wasaaradda arrimaha dibadda iyo xidhiidhka caalamiga iyo diblomaasiyiinta ee ka howlgala waddamada dibaddu waxay u taagan yihiin sidii ay xidhiidh u abuuri lahaayeen cadaawadda iyo colaaddana ay u yarayn lahaayeen marka ta keentay cabdikariin waddanka waa taa cabdikariin isaga ayaa goostay inuu somalilan yimaado baa mahadle marka koowaad mar labaad waxaan u mahadnaqayaa guud ahaan qaranka jamhuuriyadda somalilan mas-uuliyiintiisa ka socota ee halkan ku sugan iyo bahda saxaafadda iyo dadweynaha kale ee reer somalilan ee ka soo qayb galay soo dhowaynta mujaahid cabdikariin aan ku soo dhowaynayno waad mahadsantihiin wakhtigiinna qaaliga ah
iyo juhdigaas ku bixiseenba waan ka mahadnaqayaa. cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax ayaa sheegay safarkan uu ku yimid gudaha Somaliland inuu hordhac u yahay safarro kale uu ku tagi doono deegaanada ay Soomaalidu degto oo dhan waxaana kale uu sheegay in mas'uuliyiinta ugu sarsaraysa jabhadda NNF ay iman doonaan iyaguna magaalada Hargeysa. kadib xabsigii aan ka soo baxanay xaqdarradii ummadda Soomaaliyeed kacdoonkeedii guud ahaan sida ay u garab istaagtay qadiyadii sida ay uga xumaatay dhibaatadii gaadhay sida ay hiil iyo hooba aynan ugu kala hadhin sida qalbigeedii iyo caqligeedii iyo dhaqdhaqaaqeediiba ay ugu mideeyeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa marka koobaad waxaan mahad u celinayaa Rabbi subxaanahu wa ta'aala noo suurageliyay arrin hadda ka hor aan sheegnay xabsiga markii aan ka soo baxay bishii Juulaay 8 oon ballan qaaday inaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto aan soo salaami doono aan u mahad celin doono meeshaan ka bilaabi doonana ay noqon doonto Somaliland caasimadeeda Hargeysa aad baan ugu mahad celinayaa Rabbi subxaanahu wa ta'aala taa noo suurageliyay waxaan mahad aan la soo koobi karin u mahad celinayaa shacbiga Somaliland xukuumadda xisbiyada mucaaradka culimaa diinka councilka golaha deegaanka maayirka cid walba dhalinyarada salaadiinta dhaqanka bahda saxaafadda ayadoon loo kala hadhin sida ay noo soo dhaweeyeen iyagoo intaasuba shacbigii wakiilka ah sida quruxda badan ay noo soo dhaweeyeen ay qorraxda u taagnaayeen ilaa aan ka soo galaynay airportka ilaa saaka iyo xalay aan ognahay inay ku jireen runtii tabaabasho iyo u diyaar garow in loo soo dhaweeyay si ciise iyo sharaf iyo walaaltinimo karaamo leh aad baan ugu mahad celinayaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa walaalayaal daqiiqada kuma soo koobi karno inaan idin dhahno waad mahadsantihiin waxaanu isku leenahay abaal waqti dheer shaqayn doona hiil iyo hoo sidoo kale waxaan idinka sidaa salaan aad iyo aad u baaxad badan jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya gudoomiyaheeda admiraal maxamed cumar cismaan iyo xogayaha guud jabhadda cabdiraxmaan sheekh mahdi maadey oo ayaguna u diyaarsan maalmaha soo socda inay soo booqdaan Somaliland Hargeysa iman doonaan iyo waxay ku dari karaan oo kale sidoo kale wuxuu noqon doonaa kulli dhaqdhaqaaqoodaas mid aad ula socotaan waxa uu qorshaysan inay guud ahaan ay ummadda Soomaaliyeed oo walaalaha ah oo qadiyadan aad u taageertay inay u mahad celiyaan wadaagaan wixii hiil iyo hoo iyo iskaashiya waxaanu nahay dad walaalaha oo dan walba ay ka dhaxayso yaanu nahay hadalladeena dib baan u dhigan doonaa intooda badan aad iyo aad baan walaalayaal idinku mahad celinayaa dhammaantiin u malayn mahayo hal qolo oo magac lahayd oo meesha ka maqan inay jirto ma aqaan inay sooraan iyo jawaan joogaan laakiin intii kale oo dhan way joogaan golihii guurtiga oo runtii isaguna golo tala badan ahaa maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan shabakadda caalamiga ee Hadwanaag News Hargeysa.